السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن وناكسن مالي وناكسن كسو دواو روتين iyo organiseerka guriga kala habeynta guriga waa meelaha problemka ugu badan naga haysto snapkayga ayaan ka sheegay gabdha badan rabay laakiin inta aan taa sameyn laba shay ayaan ka rabaa ko waxa soo diyaarstaa caag ay ku jiraan biyo nus litir ama 1 litir hadii aad haysto labo waa inaad cuntaa maalin kaste labadaas fitamiin waa fitamiinadaas D iyo C iyo kaas kale oo mega B stresska waa fitamiin 12 aad iyo aad B12 ayuu u fiican yahay timaha cidiyaha murqaha neerfayaasha horta marka hore daji bahalkaas tarmuuska on haysto soo gado biyaha ayuu qabow ka dhigaa ka bacdi inta aad hawsha haydo biyo soo qaado taas ka soo baxan adoo baahan adoo fitamiinkaaga cunin adoo wajigaaga skincare ku sameyn adoo timahaaga soo shanlaysan adoo bijaamada xal iska tan bariis ha isoo fiirinin geedahaas aan gacanta ku soo qabtay waxa aan ka soo gaday dukaankaas la Airbrace waxaan u doontay oo rabay inaan kala habeeyo sheelarka guriga sheelarka weyn ayaa helay oo gaarigayga aan gelinayo gudahaysa ayaa helay ka bacdina waxaan rabay sheelarkaas weyn inaan qayb uga faa'iideysto dharka ciyaalka winterka iyo kabaha winterka inaan iskaga sameeyo marka bacdaas ayaa waxaan u soo qaaday wixii nooca inaan ku gadiyo ka bacdina meelaha alaabaha lagu tuuro ayaa ii dhow aan tuuro wixii aan tuurisayna aan ku shubo sanduuqa Afrika loo qaado dadka Afrikaanta loogu tabaruco okay halkan waxaan soo gatay geedahan oo aad loo soo raqiisay maanta aad ma aha 40% laakiin markood hore ba raqiis ka ahaayeenba lacagaadu yaran ka soo bixiyay $3 $4 ka soo bixiyay uma $5 midka ugu qaalisan soo marka wixii ayaan organiseer ku sameeynayaa soo waxaan tusay waxyaalaha aan ku shubo laakiin ma u baahnid ba wix adigu aad jeceshay oo aad rabtid ayaad ku shuba kartaa organiseerka ama kala habeynta guriga qofka bili aadanka muxuu caafimaadiyan ka qaata hadalkaygan ku soo cisho muhiim ayuu ku yahay si fiican u dhageyso guriga markuu iska dhex daadsan yahay oo 24 saac shaqeynaysid oo 24 saac maalin kasta aad guri hagaajid aad u taagantaa hadana aad guriga step kale aad u gudbaynin gabar yahay waxa kugu dhacayo murqa xanuun madax xanuun iyo dhibaato dhabar xanuun fara badan labo stress fara badan ayuu leeyahay gurigaagu inuu isku dhex daadsanaado saddex intaasba mid ka daran ayuu leeyahay oo wuxuu leeyahay dhaqaale baabi'in hadii cuntada gurigaaga taalo isoo ku kala habeysneen hadii dharka gurigaaga yaalo isoo ku kala habeysneen hadii oomada dharka aad ku dhaqay isoo ku kala habeysneen hadaa shaambadaad ku kala habeysneen maalin kasto dukaanka gashid waxa soo gadi doontaa wax adiga gurigaaga hore u yaalay because organiseerka guriga ayaa ka kala dhantaaran waxa waad qarisaa waad keentaa meel ayaad ku riixdaa wallahi dharkan waa soo gaday meel ayaan geliyay waa ilooba ayaad maqlaysaa shaayaan guriga ku dhex waayay ayaad maqlaysaa gacanta soo taag hadaad qof kaastaa waxa soo dhan waxa kalifo waa organiseer xumo maanta waxaan hagaajinaynaa qaanadeeda cuntada sida ay gabdha badani lacag ugu isboorowdo ama lacag ugu beeqaamsato adeega marka aad doonanaysid inta aad dukaanka aadin ka hor ama adeega billaha ama adeega wiiglaha aad soo adeeganaysid waa inaad ogtahay shay kasta oo gurigaaga ka dhiman taasna waxaad ku ogaa kartaa inaad organiseerka gurigaada aad gacantaada ku haysid wax waa wada nadiifinaa 80% gabdhaha Soomaaliyeed waa gaariyaal tan xataa aan gaarida ahayn yaan lagu caayin ayay nafta iskaga qaadaa wuxuu hagaagsanaa xaqiiqa la rabaa mogtahay laakiin inaan wax kala organiseer gareyno aad iyo aad ayay noogu adag tahay gabaraysu ma tahay qof maalin kasta qaanadiisa laablaaba marka uu banaanka aadana qaanad isku dhex daadiya ma tahay qof marka uu cuntada karinayo adduunyo isku qasanta ma tahay qof faranjiirkiisa uu qasaya ma tahay qof jikadiisa ay qasanta maalin kasta cuntada u taala dib u soo gada aday waxaan u badanta maanta kaameramankeenu waa wiilkayga warsamacadaha asaga ayaa guriga ila jooga kamil iskuulka ayaan geynay Soomaaliya waxa kala hagaajinayaa qaanadaha cuntooyinka maadaama aan geedaha soo gatay balan ayaan ka qaada gabdhaha isnaabka ayaan buul soo dhigay aad iyo aad ayaa loo raboodo waxa lagu leeyahay biliis xamdiyay walaalay organiseer ayaan ku dhibanahay waa daalnay guriyihii ma hagaagsanayaan lacag waa naga dhamaatay ka soo hadal waa sababta maanta aan organiseerka uga hadlay hadaadan ogeyn organiseerku waa nolosha waxyaalaha ugu muhiimsan marka aad tahay hooyo guri haysata waayo dhaqaalahaadu waa uu ku dhaqaalooba siiba hooyooyinka qurbaha jooga hooyooyinka Soomaaliya joogay waxa laga yaabaa in maalin kasta adeeg yar iska soo gataan laakiin hooyooyinka qurbaha joogay waxa laga yaabaa sokorta hore taal in sokor kala soo gadid saliid hore taal saliid kala soo gadid dhar kala soo gadid maanta dhan aad wax wadid hadana wax macaan aadan gurigaada ka karsaneen because cuntooyinkii kareedooyinkii wixii oo dhan meel ay kala daadsan yihiin gabdhayahow nolosheena gudaheeda aan u gudagalno dumaasha arkeenka aan iska hagaajinayna aan iska dhaafno ceelasha gudaheena ka dhex qodan aan tan soo qaadano wadaan ka soo daldalna waxa ku jira
anigan kula hadlaaya ayaa marmarka qaar organiseerka madaxa ugu xanuunaa laakiin dadka aad iyo aad organiseerkooda ugu fiicaya ayaan kamid ah iskuma kinfaaninayay organiseerka bahalka la yiraahdo aad ay u fiican marmarka qaar waxaa isla group ma furataa organiseerka dadka ka caawiside aad iyo aad ayuu muhiim u yahay noloshana wax weyn ayuu ka yahay gurigii iska ka dhexdaas waa diiqadoonay mar haduuba dhaqaalaha soo galo oo dhaqaala darro ay imaanayso organiseer jirna way badan tahay qaanadii ayaa nadiifiyay qaanad kastoo guriga ay ku taalna bac aan galiye ayaa jirto because waxaan diidayaa hadhow in qaanada kale uu dhaawac gaaro oo guriga markaan ka guurayo dhibaato iga imaato waa muhiim inaad mataqaanaa aad ogtahay inaysan qaanadaha isa dhaawac kaa gaarin halkaas ayaan kaamiradeydii dhigtay waxaan rabaa caagad kastoo cunto ku jirto inaan hagaajiyo kuwaana bacihii ayaan soo fujiyey bacihii ayaan rabaa inaan tirtiro kabacdina waxaan rabaa insha allahu tacaala hadduu ilaaha yiraahdo inaan gashado naag nool marka aad maqashid ma ahan hooyo maanta dhan guri dhex taagan oo digsi walaaqayso cunto karinaysa ee naag nool waa qof inta waxeeda idib iyo maamuus u yeelatay mustaqbalkeeda iyo faraamtiidkeeda dambena ka fakartay waxbarashadeeda businesskeeda adduunyadeeda shaqooyinkeeda waxeeda ka fakartay anigu naag nool hooyadaas ayaan u aqaanaa because cunto inta la cuno ayaa musqushi la geynayaa naag noolnimo maaha inuu gurigaada kuu kala hagaagsanaada naag noolnimo waaye laakiin inaad maalin kaste every day aad shay aad shala samaysay aad maanta dib ugu noqotid shay aad shala samaysay inaad maanta ku noqotid way adag tahay oo anaga dhan aan hal runshoorin ku wareegno halkaas runshoorin aan ka baxno nolosha waxyaalo badan ay u baahan tahay soo hooyo nool marka aad maqashid waa hooyo waxa meel iska saarta howshu inaad adigu ka baqatid maahan waa inay ayadu kaa baqato markaad maqashid naagtaasi waa naag nool marka aad maqashid maxaad dareentaa maxaad ka fakartaa maxaase kugu soo dhaca markiiba anigu markaa maqlo ereyga la yiraahdo naag nool ayaa tahay naag nool micnaheedu aniga waxay ila tahay hooyo isku filnaasho dhan kastaba ka gaarsan haddaysan xataa isku filneen ku fakareen sidee mustaqbalka dambe iskugu filnaa lahayd caafimaadkeeda ka fakartay agseeskeeda ka fakartay hurdadeeda ka fakartay bilicdeeda iyo quruxdeeda ka fakartay mustaqbalkeeda dambe nolosha inaysan qof bili aadana u baahanina ka fakartay taasaa le hooyo naag nool gurigeedana gacanteeda midig ku qabsatay howsha guriga taalla iska xalisay ilmaha meel iska saartay soo markaa guriga inuu kaa xalismo oo aad step kale u gudubtid gabdhayo waxyaalaha keenaya waxay tahay inaad organiseerka si fiican u barataan waxyaalaha iska kale organiseer gareeya howsha way kuu fududaanaysaa biliis maqal gabar yahay mi maqlaysaa muuqaalka ilaa garay channelkan subscribe garay gacan furna ku soo dhawo abay biliis haddaad rabtid inaad hore u socotid oo howsha guriga taalaahu ay kaa mataqaanaa dhib yaraato oo wax kasta dhaqso kuu hagaagaan organiseerku waa muhiim laakiin haddaad maalin kasta daalnaatid gabar xamili kartaa ma jirto inuu gurigeeda isku dhex daadsan gabar xamili karta ma jirto inay qaanadeedu sida bullaacad isku dhex daadsan yahay adigoo 20 qamaar leh ayaad maalin kasta hal qamaar sidataa aad ayaa anigu isku naqaanaa sababta keenaysa waxay tahay 19 kaloo qamaar meelna kuma ogid guriga ayay ku dhex wiifayin mid qaarada caruurta ay ku riixayaan mid qaarada dharka ay ku riixayaan mid musqusha ay ku riixayaan because organiseer maada u samaysan qaanad la yiraahdo qaanada qamaarada malihid qaanad la yiraahdo qaanada kastoomooyinka iyo tastinada malihid qaanad la yiraahdo qaanada bajaamooyinka malihid runta isku sheegna hadii aan leedahay hal kasto marka aan raadinaysa ayaa adduunyada isku fatagadisaa dukaanka ayaad aadaa waa soo gadaa waa dhaqdaa meelaad gelisay ayaad weydaa guriga waa istaagtaa inta ingiliya inta ku riixada waa meel waxba lagu riixi karin because guriga dharka yaalo iyo qaanadaha guriga dharka yaalo ayaa badan ma fahamte baalasha la iska rifaan ku dhaa waxba la isku ma reebanaya xataa aniga baalasha iga soo rifa okay waa isku soo soconaa aniga adinku waa sidii noogu bilaabatay waxaan rabaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed ka caawiyo organiseerka guriga because wax organiseer gareeno lacag aad u badan safe gareynayna haddaan lacag safe gareysanana waxa imaanaysa inaan dahabo iyo dhul iyo business iyo wax kasta sameeyno un qof bili aadan aanan u baahan okay taas waay hadaa waa u jeedaan waxyaalaha sameeynayo hadalkayga dhiirigelin ku noqdo dhagaha gasho ka bacdina fiiri mukiseedii cuntada oo dhan ayaa mid u soo bixiyay waa dhaqay uriyada inay waxa soo wasaq leeyay ma aanan ogeyn ka sheekay waa ogaaday hadda ogaaday inay bahladu ay wasaq yar leeyeen waa soo daadiyay waa dhaqay waa kala habeeyay waa ku celiyay soo wax kasto oo bakis ku shubayana waa cunto loogu talagalay in la cuno bariya markaas caateenta aan bilaabana cuntoyinka waxaan soo gadanayay kaalis kadbaas arkaysi waa misir maraq ayaan ka karsadaa abay qurux ma fahamtay bahla gabal waa miro aan quraacda ku darsado oo
kuwa ikfashinka في عن كوحي في عين ديجا برتا كوحي في عين أنيميا ذا كوحي في عين إكفشنكا كو متقانا إنرجي بدنا السيان سو وحيالا مروينا عن صوغة وهذا كم وحكو شبت مركا دانجو إلمها أدبتو دانجو إن دبان تعالى هاي وحن كلو كو شبت مزر أم مركا كرصدو يعصبدي مزر تمرقا يدلو قدر الله أوكي بمقلسا aan ku darsada mid kasta waxa ku jira waa arki doontiin soo adiga waxyaalaha u baahan toodan ku shuba adiga yaqaan cuntooyinka isticmaashi anigu ma aqaano laakiin anigu cuntooyin badan oo kala duwanaya isticmaalaa that's why ay aad u bateen bahlahu baante soo abay macaanto ay lagti marka waxaan sheegay aad u jecelahay because aniga laftirkeyga ayaa waxaan dareemayaa dhiirigelin in nafteyda waxyaalo u baahneed aan ka hadlaa oo ku raaxaystaa marka waxaan sheegaynaa hooy waxas macquul baana hooy saasa isyeelina ma waalanta markaan ku dhahayo ma fahantay aniga ayaa isdareemaya power ayaan dareemay because waxaan u jeedaa positive oo anigana ii fiican adigana ku fiican inaan ka hadlaayo waxaan rabaa inaan noqono gabdho horay u socday okay wakaasa halkaas ayaan soo saaray soo sheekada hadda ay socotaa kuwaasna waan dhaqay wax kale dhaqita u baahan male kuwa weynana waa dhaqay ayagana korkan ka tirtiray kuwa nadiifka ahaa walaal macaan bahaladaas dheer u saara maagay u saarmayaan ka baxdan waxaan maxaa sameeyaa okay ana aqawaajiifina ku dhax wajiifiyay ku yarana waa saaray ka baxdan waxa u soo dhacay laba iska naas kor saaro soo mid muringan ku shubtay mid mirihi ku dhaag fishka u fiican ku shubay mid miro kale energy keenan ku shubay mid marqa digaagan ku shubtay midna waxaan ku shubay bahasha la dhaho sisin oo sinta cabitaankeeda ayaa aad u jecelahay cunitaankeedana waan jecelahay okay waxyaalo badan u fiican tahay laftirkeeda soo kan tan kale digirteeda ayaa iska lahayd digirta filfiliirka loo Soomaaliya ma xistin aad u jeclaa jira digirta Soomaaliya ku duba jirnay soo filfiliira carabta ka soo gataa habeen iskaga tuurtaa weeshiya ka bacdina maraqahan ayaa u cabaa because digirta protein aad iyo aad u badan ayaa laga helaa proteinkana qofka bini'aadamka u baahan yahay okay soo digirteedii ayaan ku shubanayaa meeshaas waa u jeedaan waa filfiliir digir waa ku shubay qaybtaas kore saas u sameeyay qaybta hoose u sameeyay waa bariis pasta macaroni quraacda ciyaalku laba nooc iyo quraacdeedii tana soo qaada ayadana digirta ku jirtay digirta ku jirta waa digir gaduudan oo waaweyn digirta gaduudan waa weyn laftirkeeda waan kariyaa ka bacdin aan salaatada ayaan ku darsadaa waa digir aad iyo aad aydan u fiican soo aan salaatada ayaan ku darsadaa kadibna dhalada ayaan tirtiray digirteedii ayaan ku celiyay okay bila socota bay macaan soo kaaliska arag shaqayro fudud ay ahayd laakiin anigana organizer aad u muhiim ah sameystay jikooyinka dhalooyinkooda ma iska tirtiray soo halkaas dhac hadda cuntooyinka meesha saar wax faada cunto aan caafimaadka u fiicnayn waxa ku jira sokorta burka iyo baastada iyo bariiska laftirkiisa loo kariyo baastada ilmi baasi madooweynaan soo armaajadeeda cuntada furfuranjeer korkeeda ku taala ka bacdina digirta yiriisteeda oo cashada u karsayaan soo bixiyay dhaladeeda ayaan ku shubay waana tirtiray kadibna korkaas kor ayaan saaray saas ayay qaanada ku soo baxday ka bacdina waxa isla hagaajinayna qaanada digsiyada waxa soo gatay maanta boorsadaas oo 70% la soo raqiisiyay ayaa lacag aad iyo raqiis ka soo gatay because safaradeeda ay iga anfacaysa ilmahayga markaan dabaash wada ay iga anfacaysa meel badan ay iga anfacaysa waligeey waan jeclaa laakiin xogaa qaali ahayd marka la soo raqiisina waan soo gatay okay qaanada digsiyada ayaa u maaday because waxa rabaa digsiyo waxa jira gabdho intaan 100 la soo raqiisay aan gatay aan ku qasaaray waa tuugay ahaayeen soo digsiga markaan ukunta ku baq oo dhahay soo waxa rabaa digsiyadaas ina iska tuuro ani digsi madmadow le ma jeclay soo 6 xabay ahaayeen hal xabo ayaa wali rajo yar leh iyo waxa rajo kala leh baasha oo cuntada baasha lagu dubto birta oo kunta lagu dubo idina gacanta la qabanaale aynu rajay leedahay laakiin inta kale way halawday armaajadan markaan digsi kala soo baxaa daqiiqadan dareemayay laakiin alxamdulillah maanta ina kala hagaajiyay noqotay soo digsiyada intee gashataa armaajo digsiyada ma leedahay talaba furarka digsiyada mugta inay jiraan bir lagu tixo oo furarka digsiyada ku tixanaysid oo meesha easy ay ku noqonayso okay taas ma la socotaa organiserka aad iyo aad u muhiim yahay digsiyada laftirkeeda meel la saartay leeyihiin armaajo lagu talagalay alwaax la saaray leeyihiin laakiin alwaaxa halkaas ma saara kalimaada birta ay wareegayso soo digsiyadeed ma badno ani ma hayst digsiyo badan day walaal waxaan haystaa indhan 2 digsiyo haystaa iyo mid kale 3 digsiyo haystaa way badan tahay maxaan digsiyo fara badan ku falay ma jecel digsiyo fara badan laakiin birarkan jecelahay because waxyaalan dudubtaa soo birarka 4 bir ayagana haystaa may 5 haystaa 5 midaan bur ku dubo midaan hilib ku dubo midaan ukunta ku dubto iyo mid kale oo digaag ku dubo inta haysta 4 bir way iga badan tahay soo kana ilmaha ayaa waxa ugu sameystaa mufinis bahal dho ama cupcakes oo taqaani digsigaas intaan dubay ku maqnaa oo loo gubay nin dheeraas wax yeelay ka bacdina halkaas ayaan soo dhigay qashinka ayaa hor ugu sii daraa baay digsigaygiyo waan taagana furkiisina waa saaray iska baxaan dhaa walaalo macaane balaayo kula culays badnaatay intixaan yahow
kabacdina waxaan soo bixinaa qaanada qaybteeda hoose ayaa rabaa inaan hagaajiyo mishiinkaas waa mishiinka aan cuntada ilmaha ugu sameysto noloshayda aad iyo aad u ii caawiyey soo kana keeg yar ayaan ku samaystaa iyo mishiinkayga keega qaybteeda hoose marka armaajadaas walaalayaal caloosha iga xanuujinaysa because gudaheeda waxyaalo qaldan ku jiray ani markaan guriga ogahay waxaan tuuraa inay yaalaan diiqadan dareema inaan soo tuuro oo qashinka geeyo oon soo fiiriyo inaan qashinka ku ogaaday aan u maleysaa ilaa habig ma noqdo soo waa tirtirta qaanadeydii kabacdina sidaan ayaan ka dhigay 3 digsiyaan leeyahay ujeedaa ka badan u baahniba 3 ugu badan wallahi way ugu badan tahay 3 digsiya haystaa 3 shaayo keegana waa haystaa asagana okay kaas ilmahiga cunto u kariya tarmuuskis markaan ilmaha meelaha u wadaayaan cunto ku lagu qaataa hal baasta miir okay kirligayga shaaxa okay kan faranjeerka cuntada la kasta dhalas okay kaas kale hilibaan ku fornaysta okay iyo digsida furkooda furkaas tirada badan arkaysiin waxay leeyihiin bahalooyinka cuntada lagu dubo oo inii sheegay bahalo fur laha ku jira okay oo sida digsi amal loo isticmaali karo okay halkan digsi oo yarka oo asagana qudaarta aan ku huursadon jecelahay marka inta qudaarta kula shuban hoosta la galiyo ayaan asagana isriixamdiyay wax yar mid madoob uu leeyahay wax yar ku dhagay abayaha iska tuurin macaanto waxay ku anfacaysaa inaad qudaarta hoos la gashtid oo ku huursatid iyo digaaga shafka marka isticmaalaysid marka waxaas dhahay maadaama adil leeyahay qof guriga iska caateenayo mubahana iska tuurto waa fakari okay wax yar ay geel Soomaha bahalkaas soo qaata binkiga kadibna waa dhaqay meel yar wax uga dhaganaa waana xareystay meel socotaan aniga adduunka waxa uu jecelahay saxamada iyo koobka kamirgo because saxanka hadda 3 maalin cunto ku cuno cuntada dhan qaraar iga noqonaysa waan idisakay ugu dhamaysta waa ina saxan kale la soo baxo cusub koobka maalin kasta 2 koob bisan soo gataa koobka waan jecelahay 2 koob aan soo gadaa adinka inay taala koobka wala 6 xabba ka yaala waa 3 set inta kale koob arkaysi 2 xabba bisa ka taalo soo halkaas la soo fariistay biyahayga cabay aba macanta biyaha waxa la dhahay qofka biyo badan cabo caloosh way soconaysaa adiga dhayangi oo kaanaysaa maqaarkaada wuu giigsamaya adiga dhan waa dhalaalaysaa furyaha qalalan way ka ba'ayaan okay because biyaha caba wala iska dabayimi soddon hadii la dhaafaan ku dhaa marxaladaad bay cuntaa la baaya fartankiyan ku dhawaa waa waray ilaa umrigiisa yaad rabiya soo bahaladeedii aan tirtirtay ma sha Allah tabaaraka rahmaan muuqaalku waa gabagabo gabariyada waxa ka hesha jiraan commentiga soo qor muuqaalka ila garay channelka subscribe garay inta ku kulmayno qayb kale organiserka bye hadaa rabti qayb jirto aad jeceshiina commentigiina ayaa aqrinaya soo qor dharka ma ku xijiya musqusha ma ku xijiya fadhiga ma ku xijiya qolka hurdada ma ku xijiya intee problem ka haysta un ku xijiya wow bye